بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن مطلب أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة بيداء ليلها كنهارها لا يسيق عنها إلا هلك وصلى الله عليه وعلى آله ومن دعا بدعوته إلا يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى لك السلام يا دمان حلالي وحيدك سوماليات كتشرو قف الله لا قف كي دمير كيس إنير وكنوري عديدة أسك جدنا إلى هيا كيله وهذا ضوء هاي الصومالي وهذا كل لا الصومالي النمو وهذا الدنيا كركة كتشوك الصومالي النمو وهذا كل من دون الصومالي النمو لكن ما قد آخره أدو آخر الله سمن كل عرب نقول ما يسو مريكان نقول ما يو آخر الله سمن إنت أمريكا كقدبو لما أنا مدى الصوماليات مالك استيج شوكتو سلام قود بانو درية
qodobadaydu waa kooban yihiin iska koobnaadana horta marka hore fuufuugaa la hadlaya qolada fuufuuga la yidhaahdo waxa aan daawanayaa dhalinyaro soomaaliyeed oo laga tarxiilayo waddanka nairobi waxaase la yaab leh marka maanta ayadoo dhulkayga kenya ku maqan yahay oo dhulkayga ugu ballaadhnaa kenya ku maqan yahay ay maanta tiraa soomaali baan tarxiilaya talo xaggay isku wadda meesha ay isku wadda kenya iyadaa sheegi ciddiina kala celin lahayd kenyay adigiyo fuufuuyadiinna ayaa laydinka rabaa wallaanad wajeerna xukumaynin gaarisana xukumaynin madheerana xukumaynin wallaan wiil dambe oo soomaaliyeed aanad intaad askari kuukuuyaa u dirto aanu dhinaca soo qaban doonin intaanu calankaa sidinno kaayaga ku dhashay lawyacaddo iyo aniga oo ku dhashay gobolka togdheer gobolka ragga iyo wiilka ku dhashay goday iyo fiiq iyo nagob iyo wiilka ku dhashay wajeer iyo gaarisa waxaanu ka simannahay soomaalinimo waxaanu ka simannahay dhiig waxaanu ka simannahay walaalnimo waxaanu ka simannahay wada dhalasho in badan buu hilibkayaga waraaba cunay laakiin waraabaan cunaa waraaba nacasa buu aha waraaba dadow buu aha hilibkayaga etoobiya iyo kenya intii cunaysay kamaysan fakerin talo hadha maxayda ku dhici soomaali qabiil u dhiga soomaali waxa weeye tuugu sameeya nimankii soomaalinimada baabiye u sameeya nimankii dowladnimada baabiye soomaali u sameeya ka bacdi maxay isiraadeen soomaali sidaasaad ku baabiin karaysaan no way taas wax dhacaysa ma mid soconaysana ma aha etoobiya iyo kenya dhibta ay dalkayaga u geysteen waxaa maanta maamul goboleedna haysta waxaa khaayinul waddanna haysta waxaa dhiigyacabna haysta waxaa dadkayaga kala dilay ee dadkayaga kala baabiiyey waa etoobiya iyo kenya hadday etoobiya maanta diyaaradaha dunida hayhaabaan anigana shalay bay diyaaradaha dunida hayhaabayeen xiniyahoodaan leeyahay xiniya soomaali baan leeyahay ilaahay ballankii xiniyahaygu markay dhididaanna ilaahay baan ku dhartay wejigaan kaala dhacayaa wejiga kalaabi ee kalaabtu dhashay wejiga meelaan ahayn idinkala dhici mayno cid la gumaysto dunida oo gumaysi diiday soomaali mooya cid kale lama hayo etoobiya talyaanigu intuu gumaystay ayay maca taariikhdii masaxeen 2004 bay marayaan iyo 2005 iyo 2003 maxaa sababay dulinimo yacni dadka caqligooda noocay laakiin annagu waanu la dagaalanaa waxay hayaanna waanu ka furannaa dhangad baanu dabadeetana la dhacnaa iyaga iyo aabahood dhangad ayaanu la dhacnaa waxaan leeyahay kenya ugandhiiskaaga muqdisho jooga maanta way u dhammaatay haddii aad soomaaliya maalin baa wax u samaysan jirteen ilaahay madaxweynuu noo soo diray ilaahay madaxweynuu noo soo diray cadaaliya wuxuu ilaahay noo soo diray ra-iisul wasaare wuxuu ilaahay noo soo diray dad tuugtii naga qabtay oo balaayadii naga qabtay oo ummadda soomaaliyeed fidnadii ka qabtay tan iyo maalintii farmaajo la doortay xabadi qash kama odhanin soomaaliya xabadi qash kama odhanin maalin walba guulun baanu gaadhnaa maalin walba guulun baa noo sii socota 770 cadow buu la dagaalamaya madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xafidahullah hadda eeg 770 cadow ayuu la dagaalamaya dadka soomaaliyeed ee ilaahay iga dhaliyey caqli ma leh waa cawaan waa dadkaa wada foorara waa dadkaa ilaahay qabiilka laabta u wada geliyey war bal qabiilkan aad doonaysaan maad anigay weydiisaan anigaa isaaqe maad anigay weydiisaan anigaa ku barbaaray waa lagu dilay waa lagu baabiiyey ayaydaa baa la dilay awowgaa baa la dilay soo maad garanin adduunka soomaali baan ugu nabca iminka calanka ilaa shalayto dhowr dirays baa laysoo dirayo maan bixinin gebigayguba jannaan ku jiraaba janno
وبارادايس runtaan idiin sheegayaa qoladiinan reer waqooyiga ee aanu isku reerka nahay ee wada waashay soomaalinimaa idin deeqda wallaahi bay ka tahay wax kale meesha kuma haysaan riyo aamuusow aacirooy abararaqay war isiindha buuxin mayno soomaali weyn baa ina deeqda iga wala bilaaciskan iyo naacadan iyo 34 sannadood bay way dhaqaaqday way duushay maxaa maanta u dambeeyey 47 wiil ee airportka hargeysa ka shaqaynayay ee magaranaysa shirkadda ee kawo u shaqaynayay waa ka muuse maanta reernimada u eriyey gebigoodiiba shirkadda gebigoodiiba waa ka reer ahaanta u eriyey magaranaysa dalka ka saaray ee shaqadii ka saaray haye muwaadiniin maaha miya muwaadiniin maaha hadda miya ila ilma riya ku nool baynu nahay riyaynu ku nool lahay faan baynu ku nool lahay been baynu ku nool lahay ilaa iyo goormaynu ku noolaanayna ilaa iyo goorma ayaynu beenta ku noolaanayna kaaga sii darane aniga magaalada burcaan ku dhashay daadad baan qaaday xitaa maayirkaa dhuuntay barasaabkaa dhuuntay magaalada la yidhaha ceelaf weyn maalin walba dadkaygaa lagu aasa labada dhinac baa noqda hay kala gurin ama garxajisa noqdaan ama habar jeclaha noqdaane dadka la aasaa waa dadkayga weligin miyaad aragteen wasiir intuu halkaa cararay loo tacsiyaday ilaahay ha u naxariisto weli miyaad aragteen ma jirto weli miyaad aragteen balaayo inagu dhacday oo duufaan oo wasiir xitaa laynoo soo diray weligin miyaad aragteen ila reer bari baynu nahay waa maydii muuse biixina habeenkii dhowayd ee roobku daayey ee jiingadaha dabayshayri qaaday saddexdii habeennimo waa kii gudayey saddexdii habeennimo waa kii gudayey goormada wiilka hargeysa ku dhashayna uu noqday inankan maraykan ah inanka burca ku dhashay sida anigoo kale ah ama salaa ku dhashayna uu noqday loomooyaanka goormuu noqday yaa goormuu noqday dee muusow ilaa iyo islaamiyadha jiingadu musbaarku yara xagtay iyadoo ordaysa ayuu dhakhtarka ugu tagay ilaahay ha ku caafiyo durriyadii galbeediya ilaahay idinna ma garanaysa imanka amar waxay u baahan yihiin alas war annaga maalin dhowta hablaha halkaa lagu laayay dowladdaa laysaba imanka annagoo warku nagu soo gaadhaya reer baa laayay baa nala leeyay cid baa u xidhxidhan baa la leeyay ma tacsiyadaysa muusow wasiiradaadu ma tacsiyadeeyeen waa su-aaldii waa maydii waa maya war qoladiinan beri degan baan sheegayaa ee ilaahay ma garanaysaa iska foororiyey wiilalka burco ku dhashay iyo laascaanood iyo dhahar waryaha iyo wiilka ku dhashay ceeri gaabo wallaahi jaamacadda markuu dhammeeyo baalash luu noqda wasaarad baan shaqayn xafiis baan shaqayn meel kalaan shaqayn cid baan ku aqoonin hargeysa markaa timaadidna yaa ku keena hargeysa lagu leeyahy basiilaayaa la socotay hadday maanta garxajiskaa qaylinaya ee ma garanaysa sidaa u ma garanaysa dee wax tabanaya ay maanta ay madaxweyne noqon lahaayeen habar yolis baa soo raacdeen baa layna odhan lahaa habar jeclay walle waa been inaan wax kale laynagu odhanaynin qoladii garxajisa markay dalka timi qoladii kalena soo raacday weeye soomaad garanin war meeshaan aad sheegaysaan xaafad weeye xaafad dowlada kama taliso wax lagu wada heshiiye ma yaallaan qaranka lagu sheegay qaran maahay waa reer qarana oo iyagu qaran ismooday weeye soomaad garanin markaa adeerdantu waxay idinku jirtaa war 30 sannadood baad noocan ahaydeene ilaa iyo goormad sidan sii ahaanaysaa xaafadan dee xaafadan barakaysan alla ummadii kala wada xidhxidhaye xabsiyada ka buuxisa isla taagtay keligeed duushe iska kacday ee samada gashay xaafada tan barakaysan ummadii wada xidhxidha xabsiyada ka buuxisay keligeed samada ismarisa iska taagan dabar iyo xoog bay taagan ilaa iyo goormaynu xaafada tan barakaysantaa gurayna ilaa iyo goormadii xaafadda caasimaddu waa xaafad madaxtooyadu waa xaafad madaxtooye ku-xigeentu waa xaafad caasimaddu waa xaafad yaa waryaadhen
xaafadan barakaysan ilaa iyo goormaynu xaafadan barakaysan shuwayna xaafadan barakaysan qofka hadlaa waa dambiile waa ka wax lala yaab muuse biixi jaamacadda hargeysa haweenka wiilashu laga qalin jabinayo ma seexdo hadda eeg ma seexdo isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa usii jarmaada sii guda hadda eeg marka adeer riyada iska saara reer bari baa tihiin dowlad bari la ydhahdaynu samaysanayna calankaa buluugaa baynu qaadanayna soomaali baa sharaf leh soomaali baa cisi leh soomaali baa walaalnimo leh soomaydaan garanin qabiilkan iyo qurinkan iyo naxligan iyo caabuqan xaafaddu ina gashatay doonaysa sadbursiima inay ku hesho caafimaad darrada war aynu caafimaad garxaajis waa faqash garxaajis waxa weeye waa sidan garxaajis waa habar jeclo waa talo faqash bay noqotay haye maxaa idin hadhay sokoon iyagu u gudaya midh kalea laydin sheegayaa dadka reer somalilan bal waxaad eegtaan maxaan idinku idhi baasaboorka uu ku dhoofay muuse biixi waa baasaboorkii madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed radiallaahu canhu tacaala uu soo sameeyey ma idin sheegay yaa maalintii dhaweyto ee muuse iyo ay nimankaasi kulmeen kaadharhka ay siteen wasiirada soomaaliya laabtay wada sardheen cali maxamed waran cadda jaabkuu gashaday wasiir khaliil jaabkuu gashaday muuse biixi waa laga saaray ka kale dabadu sidaa uga riday maxay kaadharkooda u qariyaan haddii aanay somalilan ay kusoo dhoofeen maxay kaadharkooda u qariyaan kaarka cali maxamed waran cadde iyo kaarka wasiir ma garanaysaa bayle iyo kaarka wasiir ma garanaysaa arrimaha dowladda soomaaliya iyo kaarka madaxweyne muuse biixi wallaahi bilaahi tallaahi intaba madaxweynaha ummadda soomaaliyeed baa soo sameeyey baasaboorka lagu dhoofayna baasaboorkii ummadda soomaaliyeed buu ahaa waa baasaboorkay dhammaantood wax ku barteen waa baasaboorkaad idinku ka aradan tihiin waa calankaad ka qaawan tihiin calankan baad ka aradan tihiin dhallinyaroy calankan maanta qoorteeda ku xidhan waynu ka wada aradannahay been baa laynooga araday waxbarashaynu heli lahayn adduunkaynu tegi lahayn meel walbaynu mari lahayn innaga oo soomaaliya oo sharaf leh innaga oo soomaaliya oo cisi leh innaga oo soomaaliya oo mid ah soomaad garanin waar marka ilaahay ku hadeeyo ee aad soomaalinimada ogaato waxaa lagu odhanayaa imisaad lacag qaadatay imisaad nagu iibsatay war anigu markii aan somalilan aan difaacayay ee xanuunku yahayay idinku ka soo jawaaba awowgin baa lacag isiin jiray aniga muusahan jilici ku baktiyey dhuxunkuraabkii baa baktiyey oo jilicii baa baktiyey oo macaanjacoshii baa baktiday oo dadkii baa baktiyey oo adhigii baa baktiyey oo bisadihii baa baktiyey ayaa koob shaha shuba waryaa markaasaa koob shaha shuba marka aniga war anaa shaaha u shubi jiray telefoonkan ku garaaco anigu markaan telefoonada ku garaaco bishii 300 oo yuuraa layga qaadi jiray anaaba lacagi iyaga iga geli jirtay waxay siiyeen iska daayo markaasa waxay ku odhanayaan amiirow imisaa lacag lagu siiyey oo 3 sannadood baanu soomaali caayin qadaadi weyn baan la yaabay yuhuud baa tihiin de xanuunka nacaybka cudurka aanu soomaali ku caayin hadda eg oo aanan maqli karaynin soomaali oo qof kastoo soomaaliyeed nugula walaal ilaahay ka baq walaal labaabaanu nahay walaal maxaad nugu nici bal horta walaalna arag muqdisho ma aragtay may cadaada ma aragtay may dhuusa mareeb ma aragtay may gaalkacaya ma aragtay may garowe ma aragtay may walaal haddaa maxaad nugu nici soomaaliba maad arkine dhaqankayaga maad arag noomaad iman namaad dhex marin maxaad walaalow nugu nici gaalaad tihiin waad nallayseen war walaal dunidoo dhan baa isdilay hawiya habar gidirab gaal imisuu ka dilay ma jarteen imisuu ka dilay dhulbahaanta imisuu kala dilay bal hadda eeg isaaq imisuu kala walaal dunidoo dhan baa iswada dishay may dowladdii rajiimka walaal dowlad dictaatara cid walba waa laysaa cali cabdalla saalax baa u dambeeya waa kaa maanta yamanadii ay ajinabiga noqdeen
galbeed iyo westiya iyo noorad kala noqdeen baabuurta lagu daldalayo war miyaydu ku dhacday bal ii sheegay ummad qof Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed ama dhul Soomaaliyeed oo qof Soomaaliyeed laga raafay oo baabuur lagu guray oo dhangad la dhacay oo xabad la dhacay bal ii sheega ma jiro wallahi ma jiro mala dhicin Soomaad garan marka anigu waxaan idin sheegaya dhalinyaro anigu meesha lacag kuma joogo waligayna nin madaxa lama hadal madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajana tiisaaba ka badanoo weligay ma salaamin Soomaad garan ra'iisul wasaarena meesha dawladda ninaan isku reebnahay nin baa jooga oo warfaafinta iyo waxaysto oo waliba aanu isku raas oo siinahayo ninba Faaduma oo aanu xaggaana ilmaadeer ka siinahayo ayaa jooga oo xitaa isaga weligay ma wada hadal oo walay naga ta weligayna lacag ma qaadan laakiin dhiig Soomaaliyeed baan leeyahay Soomaali baan ahay aabahay baa Soomaaliya war maanta ogolaan maayo inta in ka badan in dhallinyaradayda Soomaaliyeed ay dhibaatooto in maalin walba hablahayga Soomaaliyeed liibiyaan xun oo uraya isagoo garaacaya inaan daawado geeriba taan noo dhaanta geeri maalin walba xanuun baan ku seexdaa maalin walba qalbi xanuun baan ku seexdaa habeen walba qalbi xanuun baan ku seexdaa ku soo toosa habeen walba ilaahay waxa ka barya ilaahow bal 200 kun oo ciidanays ilaahay habeen walba ilaahay maad ka baridan ilaahay wallaahi billaahi tallaahi habeenka markaan seexanayana anigoo 200 kun oo ciidana wata oo cagta mariya cadawga Soomaaliya ayaan habeen walba ku seexdaa markaan subaxdii soo toosan waxaan sarkaa anigoo inamadaydi dhinacayga ka soo toosay masaan soo eegaayo markaasaan cara ka noqda dabeetana 3 saacadood baan moobiladan hayo ana furin oo ana taabanin war miyaadaan idinku damiir lahayn war miyaadaan idinku danqanaynin war yaalahan war balcaaway eega qodin iyo xiradin balcaaway eega wallahi nin iga qurux badani ma jiro nin iga qurux badani wallahi ma jiro Soomaad garanay Soomaalinimada quruxda leh Soomaalinimada karaamada leh war dhalinyarada reer waqooyi anigu Soomaaliya marti uma yihi Soomaalina imka ma noqonin xanuunkiiba iga baabay iga wallaana farmaajo ka yeelaynin reer waqooyi baa tahay wixii Ingiriis lagu heshiiyay ayaa halkan ku yaala iga wallaan ka yeelin madaxweyne maxamed cabdullaahi Soomaali baanuna ummaduna waa mid dadku waa mid dalku waa mid calanku waa mid madaxweyne naga qaba waxa cadawgu noo soo raacayo xeerada Soomaali dhaxdhig Soomaali baa ina deeqda madaxweyne ka gabooye iyo aniga iyo ka kale sidaan u kala badan lahay bal hadii la doonaan wasiirada iyo wasaarada u kala hele cadaaladaan u helo taasana deeqda taasa Soomaalinimo taasa sharaf taasa cadaalada Soomaad garanay laakiin aqbali mayno farmaajo migiste baraq ku lacagtiisa qaadan jiray farmaajo waa sida oo sadiqiidu ku lacagta qaadan jiray annaga yagii eryan jirnay maagi jirnay annagu mabaanaan aqoonba Soomaad garan Soomaaliba maanaan aqoonin cadaawad Soomaaliyeed baanu qabnay laakiin idinkaaba dalkii garanaya oo dadka garanaya maxaad ku caaysan dalkiina maxaad dhibaatada dadkiina u wadaan maxaad umadiina walaalnimadeeda inaad ka shaqaysaan mooyaane maxaad umadiina dhibtooda uga shaqaynaysaan waa su'aal war dadka Soomaaliyeedu qabiilkan joojiya mardaarood baanu war daarood waa dad goba waa dad Soomaaliyeed waa dad Soomaalinimadu ku weytaay war adeer joojiya xanuunka hawiya waa sidan hawiya waa ka inta isu keenay kaalkaayna keenay Soomaaliba waa hawiya bari hore layna wada fuulila annaga isaaqaarna daqdaq iga wala nalaarkana dad hawiya noolay haddaan nimanka hawiya iyo Soomaalida 6 milyan nala dhalataanay noolayn wallahi billahi tallahi muusow magaca ilaahay gooranay habeenahayn maalinahayn baa layna qabqaban lahaa gooranay habeenahayn maalinahayn Soomaad garan laakiin maalintaas aynu qaylina yaa irir Soomaalahay yaa diray dir marka ka baxday ay dirta kicino yaa iriray aanu irir kicino ayna dir ka wareegna yaa Soomaaliyahay ilaa iyo goormaynu beenta ku jirayna
soomaalina aynu soomaaliyey xaggana dadkaan cunayna dadkaan cunaa gigig maxaan cunaa yaa waa beentan isu sheegayna waa beenta hee aynu isu sheegayna waa dulmiga dadkeenna aynu kula kacnay waa dulmiga dadkii isaaqa laftiisa aynu ku kala qaybinay waa dulmigani somalilan maamul goboleedka waqooyi galbeed beentii ilaahay baa nasri soo diray inaynu sidan isu haysano waa nasrid weeye waa nasri rabbi baa socda nasri rabbi ayaa inoo socda inaynu is haysano waa fiican tahay leanno waayo xaqiiqadaynu ogaanayna indhahaynu ka xidhnay ubadkeenna war aan ubadkeenna u talino muuse biixi markii koowaad wuxuu ahaa etoobiyaan haddana wuu cararay oo wuxuu noqday jabuutiyaan bal hadda dhegaysta haddana wuu cararay oo wuxuu noqday soomaali calankan buu wax ku bartay haddana wuu soo cararayoo calanku karaamadiisa garanayay ee uu xoolihiisa wax ku bartay ee uu adduunka ku dhoofay ee uu caddaan iyo madooba magaranaysaa ku istaaday ayuu ka hor yimi haddana markaana wuxuu noqday somalilan waa dullinimo hadda eeg baasaboorka ku dhoofaa waa ka soomaaliya waa baasaboorka dowladda dimuqraadiga adiga lagaama leh calankan lagaama leh baasaboorkan lagaama leh waliba reer waqooyi haddaanu nahay anagu annagaa idinku haysana calankan annagaa iska leh been baad isu sheegteen soomaali weyney calankan annagaa leh ama idinku sameeya ama heesta u sameeya idinkaa laydin yidhaahdaa calankan annagaa leh leanna waayo annagaa magaranaysa 4 cisho qurmiskii naga horkacay dabeetana 4 cisho aanu haynay annagu marka 4 cisho kaga horreyna calanka annagaa leh nuguma qabsan kartaan soo maad garanin adan wax ma idiin sheega calankeena ina anfaca qolaba calankee duwacayno inaga kenuwa cirko kalae aan caadna lahayn ee caashaqaye dee baana sheer gareeya war aaway soomaalidii aaway dadkii ilaahay iga beeray sheer gareeya nacallaa shaydaan ku yaalo dadkii xanuunsanaya baa aad ii eegaya waan arkaaya sheer gareeya nacallaa shaydaan ku yaale sheer gareeya nacallaa shaydaan ku yaale dhiig isu yaala meedaan dhiig lahayn dhiigga alla idinka qaadi waayo waa dhiig la-aanta waxa khayrkeena naga reebay waa dhiig la-aantii haddaad dhiig yeelan lahaydeen dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ka codsanaya inaad anigay taageertaan isoo raacdaan igarab istaagtaan walaahi bilaahi tallaahi dal qaniya iyo dad qaniya baynu nahay qalbigaynu qani ka nahay gob baynu nahay nasab dhalay baynu nahay soomaali baynu nahay cisi baynu nahay intaa waxaan kaga gudbaya qaybta hore dadka reer somalilan ee igula amiirow maxaadna siisatay anigu reer somalilan baan ahay nin gobollada waqooyi ee soomaaliya u dhashay baan ahay dembi ma gelin ciidna ma dilin dowladna kuma duulin dad masaakiinana ma laynin calankaygii baan qaatay xaqaygii baan doontay 34 sannadood damb dulmigii igu dhacay ee la igala magaranaysaa aan aniguna dadkayga dulmiyey ayaan maanta doonayaa madaxweynahayga ummadda soomaaliyeed baan u tegayaa xaqaygii baan ka rabaa ra-iisul wasaarahaan u tegayaa xaqaygii baan ka rabaa ma garatay xaqii aan ku lahaa calankan 34 jirka aan ku ahay ayaan ka doonayaa xaqaygii haddaan xaqayga doontay ma dembi ba adaanow xaq baad leedahay muwaadin baad tahay muwaadin soomaaliyeed baad tahay oo xaqaaga mayn khayrkaa kuu doonaysa ordoonadii marka anugu inaan xaqayga doonto oo ilmahayga xaqiisa u doono oo aan ubadkayga sharaftooda samadaa geeyo oo aan magacayga soomaaliyeed ku dhinto ayaan doontay reer somalilan baan ahay calankan burcaan ka taagayaa oo walla ah
hargeysaan ka taagayaa hadday dunidu rogmanayso calankan baa geyiga dib looga taagaya kan ama aqbal ama ha aqbalin ama qaado ama ha qaadan ama samadaa gal ama ha gelin soo maad garanin aniga calaacalka iyo cayda iyo war anigu cidna ma caayo xaqiiqdan ka hadla anigu cisaaq caayi maayo waa dadkii ilaahay iga dhaliyey markaan idinkaydina caayayaana soomaali weynna aan dhex joogo aan idinkaydina caayo macawaan baanahay anigu markaan idinkaydina caayayo ma nin baa dadku ka dhashay caaya soomaali baana dee qabiilla isaaq baan ka dhashay caygama mudno soo maad garan laakiin waxa weeye waxaan anigu u baahanahay inaad dantiinna garataan inaad beentan xaafadda ka baxdaan inaydaan been dambe sii dhegaysanin no more been no more waxa weeye cid ummadda soomaaliyeed been u sheegta waxa weeye calankan baynu leenahay idaawada aniga oloyi dhalinyarada reer somaliland idaawada haw ilaahi billahi caawo nin iga qurux badan inaanu jir ilaahi baa igu og saaw daawada ilmaadeen miyaan caawo farmaajo weegayn yaa war caawo miyaan farmaajo weegayn qodhiya xeelota farmaajo ma weega caawo haddaad soomaali tihiin farmaajo caawo ma weega yaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed radiyallaahu canhu ma weega horta caawo yaa bal eega miyaan muuse xidhxidh miyaan weega muuse xidhxidh uma eegi wallahi weegata muuse xidhxidh uma eegaano xaq ina allaha xubbulxaq baa la yidhi ilaahay markuu xaqa ku garansiinayo waa markuu soomaalinimada ku tuso soomaalina waa tahayd ee xanuunka ku hayo uu kaa baxo ee cudurku kaa baxo soo maad garanayn anigu dagaalka waa wadayaa wuu soconayaa dagaalku soomaalinima ay deeqda waxa weeyaan weli wasiirkaygii lama ansixin wasiirkaygii weli waa la haystaa ra-iisul wasaaraha haysta madaxweynaha haysta waa in wasiirkayga la ansixiya raxmed roos aad baan kuu salaamaya muqdishonu tegayna muqdisho yaa xamarey una ku xiisne xamarey alla xubbigii adduunkaay xamarey xuduntii ummadda soomaaliyeed xooral cayn dhalad xilo lagu dhalay xamarey alla xamarey waanu ku xumayne xamarey xurmadaada manu gudine xamarey xishood iyo dulqaad iyo xurmad noo tahay annaga xamarey xaruntii soomaaliyeed xamarey nacallaa shaydaan ku yaal xamar baynu xaal siinayna xamar qalad baynu ka galnay dembi baynu ka galnay dembiilayaal baynuna soomaaliya oo dhan baynu dembi ka galnay caasimadeenni baynu dembi ka galnay qarankeenni baynu dembi ka galnay cid walbaynu dembi ka galnay war waxa weeye loo dulqaadan kari maayo looma dulqaadanayo oromaad arkaysaa siyaad barre dhuftee siyaad barre khannee siyaad barre khuntee oroma leh yaa ina baray siyaad barre kuwan markuu la dagaalamayey waxaan buu inaga qabanayay innagaa garan weyne innagaa nidhi waa qabiil waa babababa hayaay erru waa mareexaan dhararag tuugtan buu inaga qabanayay waxaan buu arkayay nin fog buu ahaa godka lagu jannee nin fog buu ahaa iga walla inaanu siyaad barre runaan ahayn waa ahlu janna wey laanna waayo waxaasuu inaga haye waxa aynu arkayno ee soomaali baabiiyey waa wixii calankan wax ku bartay may xurmaynin waa wixii caasimadda waa ka sheekeen annaga oo xeebta liida marayn annaga oo baar curuba marayn annagoo baar xaraf dhinaciisa marayn ma annaga anagu aragnayba waxaanaad ka sheekanayso qiyaamaha aabihiin cune ma annaga anagu aragnayba noloshan iyo quruxdan iyo nimcadan diyaarad baan ka raacay xamar dhar kalkaasaan ka tegay meelkaasaan sii maray saasaan baasaboor soomaali baan sii dhar
يا بنت اسكبح الصومالية بين بعض السوشيال ترى بنت كبح بنت والله اسكبح بنت ما انت لا وين نسوع إنه تاوين نسوع إنه وين الديار ذا نسوع إنه وين الصومالي ماذا نسوع إنه وين الكرام ذا نكون قال إنه وين المامل قبل هذا بابينا دمنتود ما هو باهنين مامل قبل بين السوشيال وما باهنين مدحوينه الدنبه ومدحوينه الندبه عرره وما باهنين waxaynu u baahannahay barasaabo awood leh oo dhulka xukuma ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo kuwa isaaq la kaxeeyo kuwa daarood la kaxeeyo hawiye la kaxeeyo la isku wada daro no more qabiil no more maamul goboleed nintuug meel ku xidho laba boqol oo odayba meel loo soo fadhiisanayo waxaanu doonaynaa madaxweyne war no معقول ما وحاس إذا أقبل ميسو وعندما بربريو وأيو مبهنين والله مبهنين وإن هل تاركية لأنه وإن عشورتين هل مال نغطوه تارك هذا بلن تارك هذا سومالان تارك هذا هبلان نو محل ما بهنا ورد اللي يروي وريانه يروب مركنوا النمام مركب الشرع يروب الله ينبره ورقاص الله ينقص الضادية عرورتنا بوقت تصل السياح مركب حنوصل بوقت تصل لقو قراه ورقدي سؤال كاس يكون شرتاه تلالك سؤال كاس يكون قريه واحد كو قسمن تهين هذا العلسو وأنا حبوقة حبوقة سمعتين هذا لنسو مركو رماد يقول هذا أرد أحيانا الدولة زومالي بانو الريفل بانو آيات سوقش مركي بقول يربالو فريسي ورقد أسألو ديبي بسيو شقاد هذه ورقد المات كينين دق أولا لا فريستيها هذا حاكو ديدي إنا ضدو ضلك هاك نسطو يا حاكو ديدي يا maxaa ku diidayti maxaa dhalinyaro ku diiday inaad dulinimada ka baxdo maxaa dhalinyaro qabiilka ku daba dhigay ya adeer aan gacmaha isqabsano waxaan inaga baabinayna tuug baa inagu habsatay tuug Soomaali garan tuug baa inagu habsatay kaay magaalada ka bidacbadacday waa isaaq Soomaali garan waxa la leeyahay wuxuu yahay ma jirto Jarmal baa askari yar ka yahay loo shineero calooshiisa u shaqeysta Muusoomalnimada isaga shaqay mularkaas waxa islaamahay xanuun baana ku jira la yiri Soomaali nacayb iyo caalamka buluuga oo ki aabaaya ogaaba ay magaranaysa wax kugu baraan wax kaaga dhigeen xanuunka idin haya Soomaali garan xanuunka idin haya meel kasta marayana Soomaali hadee Soomaali xanuunka iska saar sodosanaal xanuunsanaynayo waanu caafimad Soomaalnimo la deeqda ballankii Ilaahay oo wallahi yana ballankii Ilaahay waxaan ballan qaadaya inaan inta ugu badan maanta ee waqooyi u dhalatay oo ciidan leh oo shacab leh inaan koonfur geeyo ballan baan ku qaadaya alxamdulillah gacalaad baan ku salaamaya walaal يا ورقوف كستادنتي ساقرتو ورقوف كستادنت دلكي سيدتكي ساكا شقيو هنو نساء غوار بين بانو سدو سنة يسو شاقين مجاهد هبل بغ مجاهد هبل كنا برتمت كلاو اي مثل مجاهد هبو أنا ولا بلا أنا كمان هذا ولا بلا دلاي وحوي ألقى ملك الدردنا حبيت كسر ذا والله أنا ولا ورياله ورمت بنت كلتك ومت بنت تظل حبت بارك أو دباتارك والله قالوا كلا قولي تيال قصادي
ilaa iyo goorma tiyaalkaasaa dhacday lagu jiray yaa ilaa iyo goorma dee taliya markaan garaadsaday hebel bay xabadi nagu wada dhacday dhiigayagaa isku tallaalan imse jeer ba xabadi nagu dhacday imse jeer buu nabar nagu dhacay oo dhiigayagu dhulka galay wiiguu dambeeya nabar nagu dhacay oo dhiigayagu samadaa galay sawnaga haddana nool sawnagaa soconna aan ummadda beenta kala taga ummadda beentiiyo faanka ifataa dhugta kala taga axmed baa sidana waa kana halkan habeenkina halo farmaajo asalaamu calaykum walaal raalle hawa shalayto mudane madaxweyne shalay dee waan iska magaraysa dadkaan iska jeedinayay madaxweyne ilaahay raalleha ka ahaadee bal waraaqa noocaasa laygu xidhay biri soo dhabe waayahay weli waa madaxweyne ummadda soomaaliyed mogta oo muuse mogta halow ma farmaaja sala waa kuma mudane madaxweyne waa muuse waa bara saabkii gobolada waqooyi wallahi saasuu u hadlaa wallahi car urada telefonkiisa dhegeyso muuse soo dhawow bara saabmatiida madaxweyne ummadda soomaaliyeed baa tahay dad soomaaliyeed xukuma soo dhawow maxaa dhacay mudane madaxweyne waxaan ka cabanaynaa wasiir bayle lacagtii miisaaniyadda 42 milyan madaxweyne noomuu soo dirin markaa maxaa dee madaxweyne qaldan anaa dib u eegaya raalle ahaada waan idinka raalli gelinaynaa xaq baad u leedihiin madaxweynaha ummadda soomaliyeed saas u hadla mogta xaq baad u leedihiin cid idin musuq maasuqi kartaa ma jirto musuq maasuq anigu locol baan ahay waxa allaaliya waxaad xaq u leedihiin iminkaan idiin soo diraya anaana amraya subaxa aroorta mudane madaxweyne ilaahay ku sharfa waaye lacagta waa la soo diraya dowladda xamar ka talisa ilaa farmaajo adeerkii wuxuu geystay ayaa lala soo istaagaya halkan haddana yani aduu you are sick aduu habeenka dambe ayaa wafti baa imanayso markay muqdisho timaaduu muuse garaacaya salaamu calaykum mudane madaxweyne waa muuse mudane madaxweyne soo dhawow madaxweyne wafti baa maanta muqdisho timi dee madaxweyne anana inteera deeqda hana siyaana noo soo yaro dir may way idiin imanaysaa gobolada waqooyi waa gobolada dhulka soomaaliyeed waxa weeye allahuma salli calaa maxamed xaq baad u leedihiin waftidu way imanaysaa waxay ka mid tahay dhulka nabadoon ee soomaaliyeed gobolada waqooyi waanu jecel lahay dadka waqooyi waa gob waa dadkayagii waxa weeye wax walbana waynu ka heshiinaynaa adduunkana wax walba waa dhacan waana laydiin imanaya alla madaxweynehaysaa lacag ku siiyaan 50 milyan bay keeneen 25 milyan baad leedihiin 5 milyanna puntland baale sidaasaan u qaybiyey 7 milyanna waxaan geliyey magaalada banaadir alla madaxweyne ilaahay ku sharfo ilaahay ku karaameeyo waaye madaxweyne waftidii baa imanaysa anagu soomaaliya manin marka banaanka loo soo baxo somaliland baa nala yidhahdaa qaroonada waryaale kadaan fursadeeda wada siiyo been iyo borobaganda iyo huwe ayaa laynagu shubaya oo wallaahi walle ka tag no more ben qurin iyo khashaabiir annaba maanu farmaajo u dusno yaanu madaxweynaha iyaga ahayn annaba maxaa noo diiday annaba imika annagaa si badheela ugu tagnay haddaad idinku dusteen daahir yaa shamis baa loo wada hadlaya daahir yaa shamis idinku waad u dustaan soo maaha bay telefoon baad saacada madaxweyne ya ikadi marko soo qor wax arannaba naga daariya shamis ugu tagnay asmaayad baa warar kuu salaamaya ma waalan waan miirsaday soomaaliya qadaad weyn inta waxaa shubay berigaasaanu waalayn wallahi markaasaanu waalayn laakiin imika waanu miyar qabnaa anigan baa soo qabanaya
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا من هذا أدرى سولو؟ بانكو سلامي. من هذا راد مكان قاضي سولو؟ والله الحمد لله رب العالمين. إن الله إمك إلا أنت عارف قبت. أنا عفوا قوايمك دوروي لبويك الحمد لله. ومركي وراء المحاك كل عاي. أنا صومالي لا يراد. مين اللي جاي يقول مركا مس عارف ما تدري لا يبدوش. من إسرائيل هاي بس ودكتي. وان حقيقة أنا لكن ما اللي يتادقوا إن السعودية اللي هذا وما العليا كواركية ملا إذا النصر ذا لا يكون سوري. ما أنا الصوماليات بهذا إن أنتي هدية لي صوت تبعت دور يطبق قفو شن هبلوديو إلا الحويل بهايرو مركا هدية بدن بالي صوت تريو علامات تا مركا وين أنتي وجوه الرئيسي به ما هذا تقول لكن أنا تو علامات ست. nin waxaan sidii ninka malaa inaan bu jeclaaday hadda taa inantii baa ku tiri ilaa aad sooma ma maqli jirtay qofka ilaa aad soo islaamtay mooye isma guursanayno waxaan sidii malaa ilaa aad Soomaaliya calankeeda xidhatay mooye agteyda soo mari maysid baa lagu yiri baans waan yara shakiyay marka adigu ma dhex ogaala وإن القبضة إن أنت حاسوي إن أنت الشيء وأنا إن أنت كالية دا UK مقرنسة هرمود كوا وابا مقرنسة ولا بوا قبل دي أمريكا أنا قلت إني لوران كرو قبل الصومالية ده لوران كرتو إلا أنا قولا بدو مي وحنا يجيني رمي إلا يا أمريكا ربع قال ما أنا الصومالي بانها لكن مبدأ عندنا أنا من السنة how many fucking will or ما garanaysa hawiya oo Soomaali nima aaminsan ama Soomaaliyeed ba habla isaaga qaba how many hablo Soomaaliyeed ba qaban rag ma garanaysa Soomaaliyeed Soomaaliland u dhashay oo xanuunkan dee anigu bariga hore aanu qabnay qaba biday marka taas anigu uma marko in ay aqli gali karayso min ragana in naaga ku oran karto ma garanaysa waxa dartay u samee anigu waxaan u arkaa wax aan taa fahmay way taa fahmay amiiro maalintee ku darnay madunida ha maalmo badan way maalmo badan baan lahaayo adag way ikay war aad baan idin salaamayaa bal intuu mas'uulku soo noqonayo xog badan buu hayaa marka waynu waxay su'aalayn weydiinaynaa si aynu u ogaano waxa qaldan iyo waxa sax maalmaha way badnaayeene lama soo koobi karo marka hadday maalmahan dagaal ku jiray ma maalmahan dhaawac ahaa ma maalmo waxaan sheegayaa keliya intaad qadiyadahan ku jirtay xaggan layfyada Facebook iyo arrimaha noocan maalintee bay kugu darnay wallahi horta dee layfka sidiisaba qadiyadu markii hore aan aaminsanana qadiyada waxay ahayd qadiyad xanuun bay ahayd oo beena oo ummadda been laysugu sheego qadiyadda intaan ku jiray dhibaato badan waan arki jiray oo dee xitaa ma garanaysaa gacan baaba dee aan kala kulmayba ugu gaadhay walow anigu waxaan ahay niyow nin aan ma garanaysaa ragga kale leefka soo gala waxay igaga firitiin anigu nacas macangaga baan hayo iyagu dhulka Soomaalida ma tagaan oo way ka yaacaan oo way ka fogaadaan oo baabuur bay magaalada ku maraan laakiin anigu midka kaliya ana qana waxa weeye iminka intaan halkaa waxaan doono ka shubaan intaan halkaa ka dhaqaaqo kuwii aan balaayada ku dhigay iyo kuwii aan maagay iyo kuwii kaleba aan dhex tegaya dabadeetana dee ma keebaad ma ogid keebaa wax kugu dhufan keebaad ma garanaysaa wax kuu qaba marka aniga horta waxaan ahay qof macaangago oo iska socdaan ahayo Soomaali iska dhex galo oo aan ma garanaysaa wixiisa halkaa aanay dhaafin marka kolley maalintii ay igu darreed waxayd maalintii nabarku iga soo gaadhay 2 jeer oo baa nabar iga soo gaadhay baalka 2 jeer way mar dhinac kale aan kugu rogayaa iminka waxaad noo sheegtay inaad soo hanuuntay hanuunkaagu ma gacan buu ku yimi ma daawo ku yimi mise daryeel kale lagu siiyey horta dee inaad daawada markaad leedahay anigu dee ma ihi qof ma garanaysaa bukaan ahaayo
اختريالي وحنا ويل صوماليات صومالينا u dhashay dadkiisii sirkiisii isaguna Soomaali ah laakiin waxaan nin aaba ah ubad baan dhalay ma garanaysaa wax badan baan u soo taagnaa dhowr iyo 30 jir baan ahay intaasoo dhanba waxa weeye ilaa iyo maalintan garacsaday ilaa iyo maanta hal eray u bay hor taagnaa oo ah waa layna laayay halka eray meel la layma dhaafiyo dhinac laygama kaxeeyo wado ka duwan layma tuso sodonka iyo dhowrka sanadood aan jirayna intaba waxa la lahaa Soomaali baa cadawgaaga ana cadaawadaas u badan taa markaan ka soo gudbo waxaan arkay inaanay sii soconaynin ubad baan qurbaha ku dhalay waxaan u baahannahay annaga oo Soomaaliya inaan ubadkayga halka ka kaxeeyo aan Burco geeyo Hargeysa geeyo Ceergaaba geeyo Gaalkacyo geeyo Muqdisho geeyo dhul Soomaaliyeed ay tahay sida maanta ma jigjiga iyo Djibouti loogu cararayo anigu dhulkii aan lahaa waxa weeye dhulka gumaystuiga haysta markaa iska daa dhulkii anigu aan lahaa aan caruurtaydii u geeyo taasna waxa weeye waxa ka mid noqotay caqabadaha iga hor yimi nolosha aan ku arkay tan saddexaad adduunyo anigu nin adduunyo qaatay ma yihi rag media ku jiro lacag qaata waa jiraan anigu YouTube ma lihi waligay lacag ma qaadan waligay hal qof wallahi inaan $1 isiinin intaan media ku jiray 110 telefoon baa iga gubtay intaan Muuse bixi taageerayay dhibaato kasta igala kulmay intaan Muuse qofulan aan taageerayay waligay $1 cid siisay ma jirto maantana qof Soomaaliyeed cid Soomaaliyeed alle abaalka maanta ugu horeeyay intii nolosheeda aan u maraa hadiyadii ugu horeysay la siiyo ama gacan Soomaaliyeed wixii iga soo gaara waa alaabta aan xidhanahay iyo calamaan iyo maryo kale oo aan maanta soo qaaday mooyaane wax kale oo isoo gaaray ma jiraan kuwaasina waxa ku yimaadeen markaan anigu isbedelay aan amiir ahaan ma garanaysaa go'aansaday Soomaalinimo aan amiir ahaan go'aansaday inaan dadkayga la halgamo aan amiir ahaan go'aansaday inaan cadawga ummadeeda Soomaaliyeed ka qabto aan amiir ahaan go'aansaday inaan ka qayb qaato Soomaalinimo walaalnimo iyo ma garanaysaa dib u dhis iyo waxa weeye dawladda maanta joogta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay hogaaminayaan inaan ku biiro inaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar finish Cumar Maxamuud finish la doortay aan kala qayb galo dal dhiska caasimadda 6 bilood ee hore magaalada Muqdisho nabadeeda ka bacdina markaan Muqdisho salka u dhigno aanu dhammaan gobolada inta kala salka u dhigno oo aan kala qayb qaato marka ana go'aankaas noocaas ana qaatay waa go'aan masiiriya waa go'aan ummadda Soomaaliyeed oo dhan qof kasta oo qalbigiisu uu de wax dareemi karayo uu ila fahmi karayo way su'aasha ku weydiin waxa weeye hadda maxaad dareemaysaa hadda markii hore waxaad tiri xanuun baan dareemi jiray xanuunkii waan ka ladnaaday go'aamaan qaatay waan isbedelay hadda maxaad dareemaysaa saacadan joog wallahi marka waxaan dareemayaa farxad waxaan dareemayaa inaan ahay dee tusaalaba waxa kuugu filan dadka ay daawanaya Soomaaliyeed baa tusaalaba kuugu filan waxaan dareemayaa farxad waxaan dareemayaa Soomaalinimo waxaan dareemayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay u baahan tahay wiil Soomaaliyeed waxna oran kara waxna u diidi kara waxna ka ogolaan kara marka anigu waxaan aaminsanahay inaan maanta ahay shakhsi Soomaaliyeed marka horeba dee Soomaali waan ahaa laakiin aan maanta dadkaygii dhex galay oo aan maanta garba badan leeyahay oo maanta xitaa cadawgu shalayto si fudud buu ii dili karaya laakiin maanta cadow ima heli karo waayo maanta waxaan 60 milyan oo Soomaali ah ayaan dhexda ugu jiray marka maanta waxa weeye farxadeedu aad iyo aad bay u sareysaa waayay dadkaad ka timi maxaad is leedahay iyagu ma duruuf bay ku jiraan ma waaliba sidaad markii hore ahayd bay iminka yihiin maxaa yarasiya wallahi waxaan aaminsanahay horta dadkan ka yimi inay xaqiiqada ka fog yihiin waa dadkaygii waa dad Soomaalinimada jecel waa dad ka aan ka imi anigu waan ka dhashay waa dad
aad dhiigga Soomaaligu ugu badan yahay laakiin waa dad ay niman ciil qabayaal ah oo niman tuug ah masaajarka maaha walaale waa WhatsApp yaro baaso aan sameeyeyba dad aanan garanayn iga soo garaacayaano Soomaalinimada waxaa iska leh waarwa taleefonkaba leegama dhigo bow waxa weeye ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa sida ay soo garaacayso amiirow nuclearka ummadda Soomaaliyeed wasiirkii dowladda dimuqraadiga Soomaaliyeed isagoo garan hambaliyada salaanta walaalnimada waryaa marka niyo dadkayga u soo noqonaya dadkayga dhibaato xoogan baa haysata laakiin waxaan ku dadaalayaa inaan dadkayga dhibaatada ka saaro dadkayga aan xaqooda doono inaan dadkayga Soomaali weeye dadkaas Soomaali bay la mid yihiin xaq bay leeyihiin xaqoodii rag tuuga baa doonaya inay kaligood cunaan oo ka indhasaabaan marka waxa weeyaan inaan dadkayga aan ka kiciyo tuugta dhiigyacabka ah ee meel walba jooga ee ummadda Soomaaliyeed caalamka ummadda Soomaaliyeed wax ku bartay ma garanaysaa maanta ma garanaysaa adduunka waxa wada jooga wada professor wada sidan waa dadka caalamka Soomaaliyeed wax ku soo marka waa inaan dadkaygana maanta aan uga digo oo aan maanta u kaco dadkayga si caruurta annaga naga dambaysa ay ugu noolaato farxad Soomaalinimo iyo walaalnimo aniga iyo qaar kale oo badan oo kuwaad ka timi ka mid waxaan ku aragnay inaad waalatay adiguna waxaadna leedahay haddaan miirsi xaajada waxay ka xidhmi leedahay waxay ka xidhmi leedahay adigaan su-aal ku weydiinay waxaad ku dhalatay Somaliland gaar ahaanna waxaad tahay nin habar jeclaa aan isku reebna tan iyo maanta waxaad ku nooshahay waddan adduunka dabadiisa waddanka aad maanta ku nooshahay haddiiba 30 sannadood maanta 30 sanno ayaad ama u dhowdahay ama aanad gaadhaysaa aabbaad tahay maanta waxayd inaad baylood noqotid oo aad ma garanaysaa generaal noqotid oo aad noqotid nin ma garanaysaa adduunka macallin hadduu doono professor noqotid hadduu doono nin teknolojiyadda ku hore u tegay baad maanta noqon lahayd marka haddaan adiga su-aasha ku weydiiyey miyaanad aaminsanayn adigu ilaa stiil iminka inaad waalan tahay maadaama oo dalkaaga inta raggii heelkaa gaadhay intay burburiyeen adigana ay maanta been kugu sheekaynayaan miyaanad adigu xanuun markaa iminka aanad aaminsanayn inaad adigu waalan tahay markaa labadii may anigu waxaan aaminsanahay inaan badbaaday anigu oo aan riskigaa dhacaya iyo balaayooyinka xitaa madaxdoodii ku habsanaya aan ka badbaaday waxaan ka badbaaday gaajo waxaan ka badbaaday silic waxaan ka badbaaday qarax waxaan ka badbaaday siyaasad xumo waxaan ka badbaaday dulmi waxaan ka badbaaday inta ay qabto maanta muqdisho iyo hareeraheeda marka ninkaaga adoo ila badbaaday oo ila mid ah haddana dadkii dhibanaa dib ugu laabtay sow lama odhan karo adaa gacmahaaga isku biraynaya horta waa hadalkaagu waa aflagaaduhaa laakiin waan ku jawaabayaa horta Somaliland iyo Soomaaliya isuma dhawa isumana iman karaan abaaraa dhacay Soomaaliya hal mar baa abaara ku dhaceen dadka Soomaaliyeed waa dad barakacay waxa barakaciyay waa dagaal qabiil haddii inaguba waynu barakacnay dagaal qabiil baynu dhacno waa inaga dulcad iyo ramaso iyo daroor tagnay ee inagu iskeynay ee caloolo intaayna wada leegaaneen qabandida waxa weeye Soomaaliya laynooga soo guri jiray layna siin jiray laynuguma caayin laynuguma aflagaadaynin markii aynu heshiinay ee aynu ma garanaysaa waxaynu yabyabanay iyagu dagaal waa dad inaga badan waa dal inaga badan inaga dhul badan inaga dad badan inaga dal badan inaga khayraad badan waa dad dagaal aafeeyey oo dagaalamay markii dambena adduunkii oo dhan ku dulloolamayo adduunkii oo dhan marka ma odhan kartid Soomaaliya way gaajoonaysaa abaarba waa tii naga shalay nagu dhacday ee Soomaaliya inoo soo gurmanaysay ee madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed diyaaradaha inoo soo dirayay haddaan Muuse Biixi adiga kuu sheegin
ku shalayto ama ma ku tagayay ma garanaysaa dhibaatooyinka inuu ku dhacay kaga hortagayay ulahaa imaaraad madaxweynaha ummadda soomaaliyeed baa soo diray isagaa amray soomaad garan waa tii ummadda soomaaliyeed ilaa iyo timirta iyo ma garanaysaa xabadda sabaayadda ah iyo koobka biyaha ah ee muqdisho laga soo sameeyey berigii dhowada abaaruhu inagu dhufteen waa kuwii inoo keenayey innaguna hal mar bay abaar ku dhacdayoo hadraawi yarra ku jiraynu dirnay hadda soomaad garanin oo aynu nidhi lacagta nus milyuunkaa qaada taas iyaga oo macaraashinkii inoo keenay waa kii madaxweynaha ummadda soomaaliyeed 12 milyan oo dollar waxa weeye u soo dhibay odayaashii soomaaliyeed oo qabiil walba leh marka horta ha odhanin gaajo ayaan ka badbaaday dulmi baan ka badbaaday waxa weeye gaajada waxa weeye ummadda soomaaliyeed waa dad dhibaata halaagtay waxa weeye maantana waa dad barwaaqo ku nool marka horta taas iyada intaasaan kaaga jawaabay meel lagu gaajoodo aan ku dhameeyo inaadan ku dhameeyo su-aashaada labaad waxaad tidhi dadkaas qarxinaya ee isdilaya inaba waxa weeye dee waa dhimanaa waa taa maalin walba saraakiisheenna la laynayo ciidabkeenna la laynayo qabiilka loo laynayo xaafadda loo laynayo reerreerka loo laynayo meel walba dilku waa ka dhaca ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay kullu nafsin daa'iqatul mawt naf walba geerida waa dhadhaminaysa waxa weeye madaxweynaha dhiman kara ra'iisul wasaaraha dhiman kara cid walba waa dhimanaysa geerida loo siman soomaad garanin innagu nabadda yaraynu haysanno waxa weeye muqdisho dhammaanteen boqooyiba haddii la qaado oo muqdisho la geeyo waynu ku dhex lumayna xitaa laynaga soo heli maayo laynagama soo helayo marka magaalada noocaasa ee adduunkiiba isugu yimi ee adduunkiiba ku dagaalamayo ee waxa weeye lala dagaalamayo ee aad maanta arkaysa halka ay marayso inaad magaranaysa inaad ka dhigtid meel xun oo anigana aad igu tahay magaranaysaa meesha sidaa u qarxaysa maxaad ka doonaysaa walaalow kuwaasaan la qaybsanayaa waxa weeye wiil soomaaliyeed baan ahay xanuunkaan la qaybsanayaa soomaad garan haddii adiga aanay ku dhibaynin aniga waa dhibaya dhiigga maalin walba wiilka soomaaliyeed hadduu ciidan noqoto anigu ciidan baan ahay waa dagaalamaya hadday daldhis noqoto nin injineerina baan ahoo dalkaan dhisaya haddii ay noqoto difaacidda qaranka ee afka laga difaacayo idaacad baa taasaan fadhiisanaya oo adduunkao dhan baan kaga xaarinaya intaan idaacaddaas soomaaliya dhex fadhiisto ayaan adduunkao dhan kaga xaarinaya oo aan marna tuug ku dhegaya marna waxa weeye wixii dhibaato ummadda u keena marka dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed jawaabta aan kaa siinayaa waa nooca soomaaliyeed waa kala labo qaar waxaa la yidhahdaa soomaali bantu qaarna waa soomaalida caadiga isku af maaha isku dhaqan maaha diinta xitaa oo isku khilaafsan yihiin waxyaabaha qaar adigu horta yadhegeyso adigu iminka waxaad raacday soomaalidii qaldanayd xaggaa aad tagtay shun waa habaryartaa magaceeda iyo aniga islaanta eedada iyo magaceeda waxaa looga yaqaanaa wax kale doorana wax la cuna bay u yaqaanaa adigu doorada ma taqaanaa marka xaggaa aad tagto hadday baa ku weydiiyaan mise waan kusii sheegnaa inaadeer si wanaagsan baan u garanayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa eg shuun waxay u yaqaanaan bisqinta yacni maaha wax laba ninoo waaweyne ka wada doodaan innaguba waxa weeye mur baynu nidhahnaa waxaan ma murba ma malabaa baynu nidhahnaa murka bahal kalaa loo yaqaanaa waxa weeye ummad waliba dhaqan gaara hargeysa iyo burco aan isku luuqad ahayn hargeysa iyo burco boorame iyo hargeysa iyo jabuuti baan isku cod ahayn waa isku luuqad ahayn oo aynu magaranaysaa taas waxa weeye waa agsin weeye ummaddaas meesha degta ay leedahay marka ma noqon karayso inaynu ka doodno dee bisqin iyo ma garanaysaa mur iyo ma garanaysaa shuun iyo waxa inaynu ka doodno waa laga qurux badan wax ka fiican innaga oo ka doodno wax caqliyeysan oo cilmiyeysan oo adigana kuu faa'iideeya anigana ii faa'iideeya haddaad ma garanaysaa aad wax weyn idheer tahay inaad ii faa'iideyso haddaad igu qancin karto inaad soomaali aanan ahayn inaad isku daydo inaad igu tirahdid soomaali ma garanaysaa soomaalinimadaada waxbaa ka qaldan laakiin maa inaad tahay dadka soomaaliyeed waa kala diin qayb baa baantuya qayb baa sidana soomaad garan waxaan u arkaa caydii anigu aan caytami jiray ee aan ummadda soomaaliyeed ku caayi jiray ee ma garanaysaa xanuunka ahayd markay haysay inay weli adiga ku haysaan anigu arka adeerkaas sifir ayaa xajiro laga duubay oo mar uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ah wuxuu yidhi meeshaan joogno barwaaqay leedahay maalin dambe oo qarax ka dul dhacayna buu yidhi uu soo carar adigu goorma soo cararaysaa horta adeerkay
سفر إلهي هون حريستو وحوها مواد الصوماليات بوها ميلو كعرري ميلو عررتون متشرين أنا قلنا وحنا هاي مواد الصوماليات ولما أنا وحنا فاهم لقى وأود بدل له مجا الصوماليات غير أو كسر تشيدو هذا النقطة بس يو كرامة يا شرف بقى وحنا أنا لم نقول يا وحلا قيب سنة يا ومدة الصوماليات وحنا نبي يدفع لما ريا ومدة الصوماليات وحنا أنا قلت دونا نقول ما يا أنا رجع ما أنت ألقى قربا كروفان مقدسة بابور تلوي لاليو أنا وحنا نقول دونا نميل والبمرة حتى فرمها تجا وحندي نشنا أركض دونتان إتشينير أمير أو عيدا ما أنت ألقى قدام بيست شوجا يسوى توتا حدا أو قرقيس ستة تاجن أو إذا كسر تبيني يا وركا أو الله السعودة أو الجميع أمد الصومال أنا قاعدان بتوحنا أمسنة جيري حلال أنا عندماني وحنا أمسنة هاي هديان عاود بتو كل بس دي أنين أنا ودنتي أنت أنا ناس كفردي إسكت دمان الله ولا أنا ودنتي أنا صومالي نما كنت أنت واحد بيجي أنا أدرس كأمد الصوماليات حنا وايد واحد يري قلنا إيسا هدي أنا حتى أنا بعد بعني لهاي بوقتي جاي كدقين وأنا تيجي دمانين oo xita dagaalada la galay cadawga umada Soomaaliyeed aan ka qayb qaato oo aan galo waxaan aaminsanahay inaan heli karayo malaayiin wiil oo Soomaali ah oo ku soo dhiirata Engineer Amir oo uu Engineer Amir indhow noqdo oo dhammaantood maanta difaaca qarankooda iyo dalkooda iyo dadkooda si hablaha ayaga aan loo kufsanin si aan cadawga dawladeeda uga hor nimaadno si nimanka xunxuna shisheeye kalkaalka ah tuugta aanu dalkayga uga qabanno waxaan ballan qaadayaa anigu inaan tagi doono indhihii nooshana inaad arki doontaan waliba waxaad aragtay nin la ilaalinaye Engineer Amir oo waxa weeye tuutiisa BKM kiisa sita ama gaarigiisa jiibka wata ayaad indhihiina aad ku arki doontaan haddana la naftayga qaad way in yar aan su'aal kale ku weydiiyo isagu markuu Soomaaliya tagay adeerka waxa loo bixiyay sifir adiga masiiro wala qoran doona inaad adeerkay magaca sifir wuxuu la baxay isaga oo 3 jir ah waxa la 7 jir ah magaca sifirna waxa weeyaan wuxuu ahaa sufurka ayuu adeerkay shaah lagu soo shubi jiray sida ayeeday ay sheegtay ilaahay u naxariisto dabeetana sufurka muu kala jirine marka shaah wax kale lagu shubi jiray sifir marka adeerkay muu ahayn cid wax u bixisay ee markuu yaraa ilaahay ha u naxariisto كل وحنو أركا دي مرحومنا إن المقرنة عاد كدكتيد أذكره جالسته ولا كقول بدن جاي واحد بدن بكون واحد بدن بكون وريجي الله نعرسته وين كقول بينا وقدام بين أميرو واحد حدن طيب مريم يشاسيسن واحد خوف فاننا يساب أفلقادون واحد فاننا يساب ما يورث سؤال يعني كي سؤاشي دليس marka su'aashayda dhageysato kadib ii jawaab oo hadaltada waad qalbay ama calankayga ma caayi kartid mana aflagaadeyn kartid waxaan kugu ixtiraamayaa inaad si akhlaaqaysan aad su'aasha ii weydiin kartid laakiin kuguma ixtiraamayo inaad calankayga aflagaadiso waxaan islaa wixii aflagaadida la oran jiray wuu ilaabay maadaama uu tagay meel aan waxba laga xishoon marka wali dareenkaagu inuu nool yahay baa ii muuqata haddii dalkaagii aad ka tagtay la caayayo maxaad odhan lahayd marka ma difaaci lahayd isaga anigu waxaan ahay wiil u dhashay gobollada waqooyi ee Soomaaliya ma ogoli qof Soomaaliya inuu gobollada waqooyi dadkiisa caayo mana ogolaanayo mana ogoli ummadda Soomaaliyeed inuu qof reer waqooyi caayo ama waafaqay لكن waxaan ku leeyahay in adeer kan aad xiran tahay iminka aad difaacayso horaad u gubtay waad gubtay labadeena bartan ku wada jirnaad gubtay maalinta ma gubine garan buluuga aan leeyahay ayaan jarjaray wax gubniina muu jiro waa garan buluuga ayuu ahaa calanka Soomaaliyeed waligay ma arag gacanteyda ma soo gelin caawa gacmahaygu ku jira ilaa fargalladii gacmihii tusbixii
ولقى على الصوماليات ما أنت يقول الرئيسي شركة مو طابن ما أرق قرن بلوغ قرن كيوان هيان كبو إيه لا يو عندنا هنا سيقة له أن مدحونا ومد الصوماليات وقايا كله مدحونا على المو هنا قرن كبلوغ قام تشرشرة يو هذه هذا وتلا هذا يجينا ربي العالم كون تشرشرة يبا وارها يا يو بعمر كل ذا نعس ما هي إلا وعلى المد الصوماليات ونكه هذا قرن كبلوغها تشرشرة وارها يا هنا والله يبي هالكبو يلا كودي وحالتي هرقرني أميرو إفهم بعدي فرمات ويديو كذا بعد برجع مرة يضو شرشرت إلى ترى والله وانا يا واترميا ساسا وايو ده نعس ما هي نعس ما إلا هو سميه وايو مد صوماليات بالمعنى كان كي يقول شحتاحي كان كي يقول بلوغ بوها لكن ده ما أنت وحشتها على كي كرامة لها شرفت لها عزك لها مركا هدي ولا على اللي يويديو حتى دايما لحظة ومد الصوماليات يويديو ويدو oo dad shicib iday aniga oo matalan waxa dhici karta meel deynta lagu soo casubo laga qodbadaynayo in qof intuu la soo kaco maalinta ay daawanayeen uu dhada amiirow barigaana Soomaaliga in calanka jarjartay maxaa ku kalifay deena ku dhada caalan ma jarjarin waxa maradina wata ma garanaysa weeya waan sii soconayaa se waxaan ku weydiinayaa waan kaaga sii tagayaa ninkii la oran jiray Martin aynu saaxiibka ahayn baa su'aal berdhamaan loo talaway waxa lagu yiri berigii aad oran jirtay madaxweyne aan ahay madaxweyne miyaad ku riyood mise waad yara khafiifsanayd beriga wuxuu yiri nin anigu waaban jeclaay in madaxweyne noqdee laakiin waxaan la yaabay kuwii rumaystay yiri waxa weeyaan ninkan waa madaxweyne lacagta bixinayay wax kasta urayay ku socday imika adigu maxaad la yaaban tahay kuwan kugu aaminay inaad Soomaaliya tahay oo Soomaali tahay mar qura ma la yaabto ما أنا إثيوبيا أنا ما أنا مركز صومالي بان يعني عارف كي يوم بان هدانو يأمنين يديسو ما يعني هو عقلك هذا سنس أما كوال سوا يكن كلام اللي ولا بكرة أنا مركز صومالي بان لكن أنا صومالي في دبي صومالي كان لكن أنا أنا صومالي موادنا لا شيء الصومالي ما عندنا كمان بانين ما عندنا فرمات أنا نقول بانين قف ما أنا نضرب فردين لا شيء الصومالي نبلا لكن هو يوقف ما أنت أنا ما قرنا إلى تلو أمير وكولا يسأل الله إلى صومالي بانوسلان هاي عالم بانو وضلان هاي دل بانو وضلان هاي مدحوينا وضلان هاي صومالي قرن يا دان أنا وكبح الصومالي لماذا أنا قاعد كل جاي مرة لأن المقالة كدوغو سيجا يرى صومالي قرن مرة أنا ودك الصوماليين مرنا بالمية بني أو حلا يا بنا هاي عادقة يو بغلار كلو كلام مدعة ودمان تمدوا لما يسوي يدينه أمير أو إنسان العقالتي إنسان نقول ستي محمد مقدشكو جاي المقرنسة سوماليا واحد قرنسة هل يدي سوماليا واحد يرينسة جستيه يده سوماليا واحد يبسنسة جستيه سوماليا حتى دد بالك يا حال سوق قرية طلع أو سوماليا نقل عقبة الصي يو حيوان نوعاسة أنا مرنا بدك الصوماليات نني ذيك الصو عبنا يميه أنا ميه نين قف صوماليا كعبان كرا ميه نين أنا كرا رئيس زمان لا صوماليا حميسين ميه صومالي بقى يقبضن وان هو على كيجا يقبضن مدحوينها يقبضن قرن كيجا الصوماليات بقى يقبضن صومالي إنما يقبضن لكن أنا وحوي مرنا بالله جميع ذات كأن كذا شيء إلى هاي يقبل إنا عاي لكن هنا كشقة من لماذا ولا لماذا صومالي لماذا إنا نسكح له أو بالشدة يسكح له أو نسنح قليل لليرة الصوماليات أو نمد الصوماليات ولا عليه أو نمد الصوماليات من لماذا كشقة أنا نقول مروان بنقول كالتناسله أنا نقول نقول مروان بتقف كتأذك كتجا أنا نقول نقول لكن أنا نقولين نسمع في النور سيدا دجالو هرسيدا دباتو هرسيدا العدو السماية ميه أنا وحنا لكن كشقين يا يسكحلك بالشدة إلى نمدن دليرنا وقوي شوكتا وقوي بقرنسا عندها كحرا أفريقيا صدق الصندوق أن دل إليه تصو دولة إليه تصو constitution يا شرع تصو المقرنسا أميرو بالهذا هذا برعاد الله طيب ما أنت هذا مرض ستنا متي
حاجات مرتي وهان دونتا ما قولي إن ليه يا إيبا قوف كيس هور حال حارسة مسا وحويان وادس بدشي وإن أنتي سعدية كنت لي حاجة أصلا نسوا عنا بلا ضايع ماري وان اللي يقانو مثلا مقام صالح وقصة قاطع وإن هذا قبل رحمة وجرسدو ما أنت سويس بدري لا هذاك أكما ويدين حاجة سكسوتشي ده نيجا ماري ليه ده صاحب كاجم حاجة شوجا rag badan oo kale ma saa weeyaan adigu yaad marti u ahaan doontaa marka su'aasha aakhirka ah leesho inaan burcay ugu iman kari maysa oo burco baa magaaladeedii laakiin adaa ka cararay moogta waayo ku joogay horta marka hore waxa inaga reeban marwooyinka inaynu ku noqnoqono kolley anigu uma arko raganimo waxaan u arkaa ninka ragga ah inaanu ku laabanin ereyga inanta mar hore aad weydiisay si qurux badan ma kaaga jawaabay markaad geshid goroyo dabada giigilada inaad jooji ha gelin baan kugu uri marnaba dumar haddana waxaad gashay wasiir maareeye iyo hooyadii iyo waalidkii taasina waxa weeyaan ma fiicna habluhuna sidoodaba waxa weeyaan ma fiicna in ma garanaysaa aad ku noqnoqoto waxaan kuu sheegayaa anigu waxaan dhashay مي في عنتها الدمور حمضة إيه كنا ربما كل شيء مي في عنتها الدمور حمضة سؤال بدي ويدي ما كوار سنة برعان ولا شيء على كأني قو ستان إيمان إياه قلنك الحرية ينك أنا جاي صوت دوننا إياه ينك والله أنا دقل قبت لهين بان إيمانية دقل قبت أنا لهين أيان إيمانية سومات قرنين حين ينل لو يقع عليك أنا متشلو سومات قرنين برعان أنا ولا شيء عرقابي الله سبحانه يبوه لنا أنا ولا شيء سومات قرن مو سندل نكيج علين لها أنا على كاسي والله إنا ردنا يبل يطل دوني ذا نتشوجن إيمانا إنا هدو موسى هذيك كوجو شكاي هو اللحمة اللي جاي موسى قلبي لك شيء قلبي لكن أنا جماعة أنا جو ستة أيو قاعد جو الصومالي يهي أيام بلن كيلا إيمانا يا حين يولي يعني عسلمة هي أنا طبق لا إيمان ما هي أنا جو أود إذا وطان إيمانا يا أوكي الله لي كي قولي بدنا إريانية وكل إريانية أود أمر كأنك قلبت شغالة على كوا صق لا إريدا ناران كورا بالنارو نارو مركانو ما ينبرع لوجو أنشري كرو والله أنا نهين يبل برع الرجبة شوجا أو أدي غيو وحمرة أتسيته هرب لول جلوة أدو ما بطل في أخلاق لأكرام يسوي عدو ترى عالم كأمة الصوماليات إكرام هذا له حتى أنا أقولنا إن وأنا أري أخلاقي سن كشرفتي عالم كيجا كرام هذا له شرفته أنت سنوا عدت كعدتني والله يقولي كيجا مرة مدة وطن فارقة عنوف أنت كنت فنافع أظن على شرف وصلنا وصلنا قوان لبدين ميل نودي يلا نوايا مالتين الله في كهر ليني ما أنت يوتيوب كوجرتها لبدين ميل كوبينير كلاين ما أربعة كشوا قاس أربعة كوكاتشا ما كده مرة كل هذا يثبت بدليل ولي أقول شان يلا بلوغ صوغة أقول كلام بلوغ صوغة تبغى توري سويني لكن أقول شيء عيسو إلى هذا روان تركوا السنين ويل صوماليات بعد إلى هذا الحبات تروحوا كل السنين صومال النمو ولا النمو وذا الدرش والله ما كنت دارتي أنا وحركت بدن جودة وحالة أرك باروني وارك صومال النمو كنت أقدر وكو يبدأ أقدر دي هاي صومال النمو ده بدن إيوه إن هذا الصومال النمو كنت أقدر من نما كنت أقدر ولا نما كنت أقدر من نما الصوماليات شنتي الصومالية لأن سكاننا أيها كنت أقدر كبح بدل هاجن هرجيسية المقدسو ما يسوتي ورشنتي بينو كيننا شنتي والله بدي كلامات اللي قناية أو أفك السارن كان يسبينو هاي السنة أدون كيو لم بيس بدلي كين يجرن هون وبع ماذا حكى لتشوفيننا إثيوبيا ما هذا أمير رجوا قرشة ورماش راح تقول هذا العقبة طال أو وين كتنا السنة إنه يدور ترى لو عنده بين كتوفنا وقرشين وجري كنا لكن ماش راح إنه أرجنا يدي بابا أصلا هذا إدت كذي ما أنا والبقرة هو
قنبل درياس كنا عيهو واحد dhibaatada aad arkayso baleeyada inaad cuquubad dadkeena ka shaqeysan karmaan hadii faa'iido taalo meesha ay sheeg marshidaal baa laga helay ma ma nabad iyo noloshii baa dhaqaalidii u bixinaysa iminka lembergi oo ku bixinayraade wada wax noloshii waa la helay way ciisow markuu ma sheegi karo wallaana kugu sheegi karniyo bille aanan ku oran karin meesha lacag baa taal kuma oran karo ما أرك وحاجة اللغة ما حاجة اللغة أنا أنا بكون شيء داير يا شمس كذا كوكو شيء لا يبغى هو صدق أنيقا Soomaali nima taalo Soomaaliya lacag ma taalo geerida loo siman Soomaad garanin dhaqaale ma yaalo hadii Soomaalinimo ay naftaa inaad u hurto Soomaalinimo aad diyaar u tahay ana wasaalan Soomaad garan laakiin wax ka sokeeya wallahi oo iyo bille iyo tale Soomaali hadii waa lacag ba Soomaaliya laga helaa waa been hadaad muwaadin Soomaaliyeed tahay ya war inaad dhiigaaga iyo naftaada u hurto Soomaalinimo kaliya ku garan ay ku soo gabagabeynaysaa inaad way Soomaalidu waa 8 milyan bal hal kun caawa ku gaarsiiyaan maalintaas aynu qiimeynaa xaga life-ka aadna waa ku salaamaya aad iyo aad maasat ku gaarsiiyaan oo inaad tiraad ku xisaabtamaysa 800 baa way daawanayaan waligeed 900 baa la daawanaya kunka sheegaysa waa baxay Soomaali waligeed bay tarinaba daawan markaanu hablaha cayno ee dunida cayno ee dadka cayno ayaa 500 la daawan jirtay markaasna habeenka oran jiray gaw aan dhalay 500 baa caaw ka daawatay hadaba ka baxaysa 10,000 8,000 900 qof bay daawanaya maxay ugu daawanayaan wallahi Soomaalina bay ugu daawanayaan iyo billah Soomaalinimo ayay 800 imka 900 ku dhawaadkaas nagu daawanay waliba Soomaaliya dhan baa yaaban haddaan week Soomaali imka week markan dagaalka sii wado iga walay rabbiga ilaahay Soomaaliba ninka daawanaysa waa aniga Soomaaliba qof waliba maanta wuu igu naxay war ma amiir baa Soomaali ka hadlay war ma ninka ugu adka war ma amiir ya anyway marka ciiso إن هذا الحمد لله إلهي بس سومالي نقدري إلهي أيه سومالي نقدري سومالي نو قب الشيء سومالي نما ندق ذا شرفت هذا والسومالي نما دور قفوا كلا أيان شانس يرسينيه ممكن باكو داونيس حقيقة داونيس ممكن عليكم السلام وانكو سلامي انجينير وانكو سلامي كان هذا ولا قمر سودو waa dhawahay waan ku hambalyeynaya go'aanka aad gaartay Soomaaliya waa hal qowmiyad halka qowmiyadna waxa weeye hal diin hal af hal dhaqan baa ka dhaxeeya Soomaalinimo ayaa waxa lagu helayaa وانا كوها مبليين إن شاء الله تعالى أنا صومالي ما أمسن تهاي لصومالي هو وحتى شرف له هل كاس كود إلهي نبحوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يانا لكلا تجن ويجر تاين وحياة بدل دعيانو دقال يوسف الوروح بدل الصومري لكن وحي وبتقى أنه ولا قد داوب بدون إن شاء الله تعالى ودمنا النجوها رئيسا وينقبضين إثيوبيا كينيا waxaa muhiim ah anaga inaan isku tagno oo Soomaalinimo iyo walaaltinimo iyo isugu tanaasulno marka waa maasanta waa ku mahad celinayaa barnaamijyada badana waan fiirfiiriyaa laakiin maanta waxaan u soo galay inaan ku mahad celiyo oo aan ku raahdo ilaahay ha kula jiro aad baan ku salaamayaa insha Allah taala aad bad maasantahay ilaahay adigana ha ku sharfo rabbigu ha ku xifdiyo aabba Soomaaliyeed ama mas'uul Soomaaliyeed walaal Soomaaliyeed أيها وحن سيدا أوكله قدوميها عشبة قبل كبنادر وحن لا إلهي حلقة كلا قبطه إلهينا حلقة كوكا أستر وحن هل كان يدنا أن أرنتاس لقما مارمان إن ساحبك الشينع علي إن وحكى عبلي نفنانا أو مرسل فلدق اللي رادو
soomaali waxa fiican inuu mursal faladegan iyo ragga la midka idinka ammaan helaan mursal faladegan waa nin soomaali oo dhan baa cayda cid uma jawaabo cid kuma mashquulo itaalkiisa fanka ayaa noocaas ah ha ku nicina hana ku maagina ha dhibaataynina shiina culeyow ninkaasi waa kaa cabanayey kolley halkan baari waa timi qolyaha fanka waad hoos orodaa shiinow miidiyahaaga ku eegow waa iga tala in adeerow 100 godobood ha samaysan miidiyaha wada godobtaa baynu ku jirnaa waxa weeye war miidiyahaaga iyo siyaasadaada aad maalinba reer ku dhegayso ku eegow halkii xafladii jarmalka waxa weeye waxbaad ka dhigtay maalintii Puntland halkan sida oo kale inantii haniyuka markay joogtay waa tilay ka shaqay bari waan isugu nimay laakiin isma arkin shiinow nimcaan hilaac waa adigii ma garanaysa halka ugu tagay adigii Cabdiqaadir Booskiyo marka inaad ara waxaan ka codsanayaa fanka iyo fanaaniinta ha dhexgelin yaana ka cabanin ummadda Soomaaliyeed ee labada nin garanaysana waxaan ka codsanayaa inaad labada nin u dhameysaan waa laba nin oo Soomaaliyeed waa laba nin oo caana waa ceeb rag baan arkayay qabiil ka dhigaya oo qabiilo ma garanaysaa ka wada shiilana waa wiil Soomaaliyeed faladeganna waa wiil Soomaaliyeed Soomaalinimaha loogu dhameeyo walaalnimaha loogu dhameeyo yaan dab lagu shidin waayo hadduu faladegan dhaawaco waxba kama faa'iidayo waa la xidhi uun marka la xidhana Soomaali un baa baryaysa walaalow soo daa waa walaalka waa wiil Soomaaliyeed waa sidan calmaadi jibriil xasan inaad aad baan ku salaamaya walaw doodayda caawa ay dheeray laakiin habeen dambe aan ku soo casuumay habeen dambe aan adigii anigu wada doodayna cali mahdiyo habeen dambe wada doodi doona insha Allah marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inaad nimanka aad dhexdhexaadisaan hawshooda dhameysaan labada dhinacba dadka media bumbuuninayna waxaan leeyahay war ka daaya bumbuuninta Soomaali meel kasta joogto Ilaahay qalbigooda burcada isu mariyo dalkeennoo nabada inagoo nabada qarankoon nabada Soomaaliyo nabada waxa weeye guushi Soomaalinimo sharaftii Soomaalinimo cisigeeni dhammaanteen aan soo ceshano Soomaaliya waa midnimo waa walaalnimo waa wada dhalasho Soomaad garanin Soomaalinimo sharaf leh waxaan ka raali aan iska raali gelinaya cid aan soo qabanin walaalayaal iga raali ahaada insha Allah idaacada waan idin ballaadhinaya telefoonaan idin ka dhigaya waan weyneynaya waa idaacad Soomaaliyeed waan dhaqaale gelinaya marka waxa weeyaan idaacad ummadda Soomaaliyeed oo dhan u adeegtay noqon doonta idaacad midnimadiina ka shaqeysay noqon doonta idaacad aan madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe iyo ma garanaysa hebelow aan oranin oo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeedna garab ma garanaysa taagan ummadda Soomaaliyeedna midnimadeeda ka shaqeysay way idaacadeeda waxa la yiraahdaa idaacadda nuclearka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan leeyahay qalbigaaga fur indhahaaga fur bal intaad dhageysato 10 daqiiqo bal shanta eray oo horeeyo codkayga qaado oo hadalkayga bal waxaan ku leeyahay wixii aad ka qaadan karto ka qaado Soomaali garan taas aydan anfacda taas karaamo leh Soomaalinimada karaamo leh ay qurin ciyaala suuqnimo wax Allah leh waxay tirtaa ma jirto maxayno balana dalkeena inuu dhisano Soomaaliya inuu dhisano walaalnimo wada dhalasho Soomaali garan ninka aniga Soomaaliya maanta iga sheeganaya igaga magac weynowna aday ku taala Soomaaliya ninna aniga igaga magac weyna Soomaali garan marka dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamaya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh